Bismillaahi Raxmaani Raxiim kulanti wanaagsan daawadayaasha qadarinta iyo xushmada inaga mudan meel kastoo aad dunida ka joogtaan si walba oo ay noola socotaan. Halkani waa Daryeel TV oo idinkugu helan inuu idiin gudbiyo wararkii ugu dambeeyay dhacdooyinka Soomaaliya iyo dunida caalamkeeda. Akhbaaraadkeena ugu xiisaha badan ee qaybteena aan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah National Intelligence and Security Agency oo loo soo gaabiyo NISA markii Soomaali ahaan loo qeexana hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ayaa si hufan ula wareegay Yaasiin Farey isagoo kala wareegay Fahad Yaasiin. Hay-adda NISA oo ku taageerayso Yaasiin Farey xilka uu u magacaabay mudane madaxweyne Farmaajo. Saraakiisha laamaha amniga ciidanka qaranka Soomaaliyeed ayaa waxay yeesheen shir albaabaha ay u xiran yihiin uu hogaaminayo taliyaha cusub ee hay-adda NISA Yaasiin Farey, Generaal Odawa iyo taliyaha booliska Xijaar, kuwaasoo ku amray ciidamada qalabka sida dhammaan sugidda amniga magaalada Muqdisho iyo goobaha muhiimka ah iyo xarumaha dowladda siday u sugaan khatarta ku soo wajahana ay uga ilaaliyaan. Halkaasi waxaa ku soo idlaaday Ra'iisul Wasaare Roble afgembigii uu la damacsanaa mudane madaxweyne Farmaajo. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa rabay inuu lafdhabarta kaga jabiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilka qaadista uu ku sameeyay wasiirka amniga Xundubey isagoo ku bedelay Cabdullaahi Maxamed Nuur. Sama yahay nin raadin kara cadaaladda Ikraan Tahliil Faarax. Mas-uulkani ku caan ah musuqmaasuqa Soomaaliduna ay u taqaano 30 jir haysta 30 malyan. Tillaabada uu qaaday Ra'iisul Wasaare Roble ayaa waxaa ka hor yimid wasiir Xundubey oo gaashaanka u daruuray oo kuna tilmaamay wax kama jiraan xilka qaadista uu ku sameeyay, shaqadiisana uu meesha ka sii wadan doono. Sidoo kale wararka Itoobiya, Tigreega oo lagu eedeeyay xasuuq ba'an inuu u geystay 2 qof oo muwaadiniin ah oo u dhashay kilimka Amxaarada magaalo sidaasi aan uga fogeyn Gondar. Fadlan ha naga hilmaamina subscribe-ta, like-ta, wixii falanqeynna commentiga nagu reeba.